السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaan ku sharixi doonaa Python exception handling iyo sida loo isticmaalo. Marka ugu horeysa, what is an exception? Exception muxuu yahay? Exceptionku waa error. An exception is an error that happens during program execution. Programkii markaad run garaynayso ayaa wax soo bixi kara errors, khaladad ayaa soo bixi kara. When Python encounters an error, marka Python arka marka errorka ka hor yimaado, it can handle. So marka wuxuu ku sameeya garan maayo kabacdi wuxuu sameynayaa it raises an exception. Waxa la exception ayuu raise garaynaya. Exception ayaa soo baxaya ama error ayaa soo baxaya. Marka sababta waa maxay aynu u baahannahay inaynu wax uga qabanno exceptionskaas? Why handle exceptions? Ugu horeysa waxa weeyaan prevent program crashes. Programkaaga ayaa crash garoobaya. Marka qofkii isticmaalaya programka isagoo dhexda ku jira ayuu programkii waxa laga yaabaa inuu crash garoobo kabacdina uu noqdo program aan la isticmaali karin. Tan labaad waxa weeyaan marka wax khaldamaan errorka soo baxaya adiga message-kaad bedeli kartaa, waxaad ka dhigi kartaa user friendly message qofku uu fahmayo aad u sharixi kartaa. Marka provide helpful error message. Matalan file buu rabay qofku inuu furo, filekii buu waayay. waxaad oran kartaa filekaas oo magacaa leh ma jiro. Marka qofkii uu fahmaya marka wixii khaldamay. Ta saddexaad waxa weeyaan clean up resource. Matalan filal baa kuu furnaa, waxbaa khaldamay. Intaadan programkii joojin ayaad waxaad samaynaysaa marka filashii aad xidhaysaa. Haddii kale haddaadan filashaa xidhin oo close garaynin waxaa dhici karta inuu markaa program kaloo dooni inuu filekaas furo inuu furi kari waayo oo dhaho markaa waxaa isticmaalaya program kale. Taafraad waxa weyn allow the program to continue running. Programkii ayaa sii socon kara meeshuu ka crash garoobi lahaa. Marka structure-ka la isticmaalo waxa weeyaan wax la dhaho try except block. Marka try-ga waxaad ku qoraysaa code-kii aad qoraysay. Code-kaas waxaa laga yaabaa marka code-kii aad run garaynaysay ee khaladka soo tuuri laga yaabo inuu khalad soo tuuro. Code-kaas khaladku soo tuuro aad leedahay wuu soo tuuri karaa ayaad markaa waxaad gelinaysaa except-ga. marka dhowr except oo kala duwan ayaad samayn kartaa. Matalan haddaad rabto inaad file furto waxaad oran kartaa marka eeg khalad inuu geli karo khaladka ah file not found error oo in arki doono. Marka exceptiga ayaad ku qoraysaa khaladaad ka dhici kari lahaa, halkaas ayaad markaa message fiican aad qofka u celinaysaa. Haddii wax walba shaqeeyaan wuxuu gelayaa else. Marka hal try baad haysan kartaa blogga dhowr except oo kala duwan oo ku xidhan errorka aad rabto inaad markaa handle garayso kabacdi else hal else-kaasi waxa weeyaan markaa wax walba hadday shaqeeyaan else-kaas ayaad gelaysaa. Finally-na waa meeshii aad mar walba marka finally uu gelayaa. Finally waa meeshii aad matalan haddaad rabto inaad resource-ka clean garayso inaad filekii furnaa inaad furto halkaas ayaad markaa ku qoraysaa code-ka. Marka try-ga isagu waa khasab had markaad qorayso. Inta kaloo dhan waa optional. Inta kaloo dhan markaa aday kugu xidhantahay kolba waxaad u baahan tahay. Marka try code that might fail ayaad gelinaysaa except code that runs if an error happens. Hadduu khalad dhaco codekii run garoobi lahaa ayaad halkaa ku qoraysaa. Else waa code that runs if no error happen. Haddii wax error aanu dhicin codekii aad rabtay inaad qorto halka else-kaad ku qoraysaa. Finally waa code that always runs. marka waa code mar walba run garaynaya oo u isticmaali karto clean up-ka. Raise-ka wayna arki doonaa adiga exception raise garayn kara. Marka waa you can create an exception yourself. Adaa exception samayn kara sida wana arki doonaa. Marka tusaalayaal ku saabsan ayaynu iminka arkaynaa. Ugu horeysa waa inaan fahnaa bal exception-ka wuxuu yahay. Marka haddaan dhaho hadda print 10 divide by 0 0 looma qaybin karo number. Marka haddaan run dhaho iminka waxaa soo baxaya error exception. Exception-ka waxaa la dhahaa magaciisa waa muhiim inaan fahno waa zero division error. Markaa dhowta exceptiga waxaan ku qoraynaa zero division error. waxaa kaloo muhiim inaan fahno message-ka halkaas ku qorayaa division by 0 laakiinse message-kani ma cadda adiga hadhowta bedeli kara haddaad rabto. waxaan kaloo samayn karnaa haddaynu matalan number aynu u qaybno string waxaan arkaynaa isna khalad kala soo baxaya error kale. Errorka waxaa la dhahaa type error. Marka unsupported operand adugu waxa weeyaan muhiimaddu integer iyo string isuma qaybin kartid ayuu noo sheegayaa. Okay, haddaan isku dayo inaan furo file aan jirin matalan haddaan dhahno f is equal to
open filekaasaan isku daya inaan furo filekaasaan jirin waxaa inoo soo baxay exception file not found error marka wuxuu ku sheegay inaanu filekaasu jirin khaladaadka markay iman karaan waxaa ka mid ah matalan haddaad samaynayso oo kale calculation number baynu qofku weydiin inuu geliyo matalan marka number baynu rabnaa laba number baan rabnaa inaan isku qaybino matalan waxaan weydiinaynaa number 1 integer aynu u bedelaynaa waxaan kaloo weydiinaynaa numberka labaad okay labadii number markaan rabo ayaan rabaa inaan isku qaybiyo waxaan oranayaa total num1 divide by num2 okay hadda markaa laba number oo caadi haddaynu gelino wax walba waa okay waxaa inoo soo baxay 3 laakiinse marmar waxaa dhici karta inuu qofku khalad geliyo ama 0 geliyo halkan space baynu dhexaysiinaynaa marka haddii qofku 0 geliyo hadda numberka ugu hore waxaynu nidhi matalan 12 ka labaad buu 0 geliyey halkaa waxaa inoo soo baxay exception ah 0 division error okay exceptionkaasaynu markaa handle garaynaa okay waxaan kaloo idan tusayaa matalan haddii qofku geliyo text hadaynu dhahno matalan 12 iyo wuxuu geliyey waxbuu iska geliyey kabacdi waxaa soo baxaysna value division error marka errorkan oo dhan waa inaynu qaban karnaa okay sidaynu u qabanaynaa waxaynu oranaynaa try exception aynu gelinaynaa okay xisaabtii aynu xisaabinaynay oo ah codekii halkaas try ayaynu oranaynaa trygaas waxaynu gelinaynaa marka xisaabtii aanu sameynaynay labadii number okay halkan waxaan oranaynaa marka exceptionkii ayaynu qabanaynaa hadda except anona 0 division error hadduu qofku geliyo 0 matalan oo errorkaas uu soo baxo waxaan oranaynaa print sorry you can't divide by 0 marka waxaan u sheegaynaa inuu qofkii khalad sameeyey haddii wax walba okay noqdaan marka waa elsekii xisaabtii aynu xisaabinaynaa oon printer garaynaynaa exception handling waa intaas haddaad fahamtaan program kasta waxaad u samayn kartaa exception handling marka try accept iyo else finally uma baahni waayo file ma furayno marka imika haddaan run dhaho waxaan geliyey number 12 0 baan geliyey wuxuu inoo print garaynayaa waxaan khaldamay totalkana weli waa xisaabti weeyaan waa kii errorka soo tuurayey waa inaynu xaggan geynaa isagana okay aan ku celinaynaa mar kale 12 baynu idhi 0 wuxuu inoo print gareeyey message friendly ah sorry you can't divide by 0 messagekaas inoo print gareeyey okay marka hadda waxaan idhi waan ran geliyey haddana 12 text baan geliyey test maadaama aynu errorkan ayna qaban wuxuu inoo soo tuurayaa value errorkaas inoo soo tuuraya waxaan odhan karaa value errorkan waan qabsan karaa waxaan odhan karaa matalan another accept waxaan idhi acceptii kala duwan ayaad isticmaali kartaa accept value error waxaan odhan karnaa please provide only numbers okay marka hadda waxaynu qabanaynaa laba accept ayaan qabanaynaa run haddaan dhaho haddaan iminka text geliyo wuxuu inoo print garaynayaa friendly message again message friendly ah please provide only numbers sidaad aragtaan waxaynu u sheegaynaa value errorka wuxuu yahay haddii laakiinse accept keliya aynu isticmaalno wax walbuu markaa qabanaya mana fiicna waxaa fiican inaad waxaad arkaysaa halkan wuxuu leeyahay markaa ma soo gaarayo halkan haddaan kan ka saaro iminka acceptiga in loogu dambeysiyaa fiican sidiisaba laakiinse hadda accept wax walba kuu qabanaya marka waxaynu odhan karnaa
sorry something went wrong مثلا. okay هذا run dhahno haddaan u qaybino 12 divide by 0 errorkii sorry something went wrong. except wax walbuu qabanay laakiin sisaan idiin sheegay ma fiicnaad exceptka isticmaashaan hadaad isticmaalaysan inuu ugu dambeeyaa fiican. haddii hadda matalan aan text u qaybino isna errorkii unbuu soo tuurayaa. marka messagekaagu specifica ma dhigi karid sababta ma garanaysa wax khaldamay. haddii aynu rabno exceptionka khaldamay inaynu messagekiisa ogaano inagoo isticmaalayna exceptiga generalka ah waxaan odhan karnaa exception as e. marka e waxay u taagan tahay exception laakiinse haddaan doono k baan ka dhigi karnaa haddaan doono b baynu ka dhigi karnaa. adigu waa variable name inta badan lex waxaa la isticmaalaa e. waxaan odhan karnaa print coma e. edaas marka error messagekii buu inoo hayaa. haddaan hadda run dhahno 12 divide by 0 waxaa inoo soo baxay sorry something went wrong error message division by 0. marka kanuu error kastuu qabanaya laakiin saan sheegnay waxaa fiican inaad isticmaasho specific exception names inaad isticmaasho meeshaad exception ka isticmaal lahayd inaad ama aad dhahdo 0 division error ama value error kana aad ugu dambaysiiso. marka waxaynu arkaynaa dhowr tusaale ku saabsan sida loo isticmaalo kanoo kale. marka wuxuu noqon karaa calculator labadii number baan isku qaybinay waxaanu handle garaynaynaa 0 division error iyo value error iyo wixii dheeraade labada aan ka mid ahayna exceptionkana handle garaynaya. marka kanoo kale hadda calculator oo kale waad isticmaali kartaa intaad function dhexgeliso ayaad oran kartaa marka return else oo kale meesha printan ka nidhi waxaan oran karnaa return kabacdina totalkii. tusaalaha kale aan arkayna waxa weeyaan markaa file ayaan rabnaa inaan furno mar qofkii baan weydiinaynaa fileka magaciisa waxaan oranaynaa markaa enter a file name filekii baan isku daynaa inaan furno. fileka haddaanu jirin marka waxaa soo baxaya file not found errorkii aan print garaynaynaa. haddii fileka aynu furnayna waxaan samaynaynaa close finaliga. marka waa horeynu soo aragnay laakiinse waa isagoo marka hadda ku dhex jira try accept iyo finally. marka run haddaan dhaho file aan jirin baan isaga qoraya halkan demo.txt. marka halkan oo kale hadda problemka waxa weeyaan filekii ayaan isku daya inaan close garay isagoon jirin. marka finaligan oo kale hadda looma baahna. kan wuxuu ku anfacayaa keliya markuu fileku jiro laakiinse fileka markaad process garaynaysa uu khalad soo galay markaasaad filekii xidhi kartaa. haddaan hadda kaa ka saaro aan dhahno markaa run again sorry the file demo does not exist. marka waa muhiim markaad file furayso inaad isticmaasho try iyo accept oo aad markaa handle garayso file not found error. markana waxaa wax la dhaho index error. matalan haddaad dhahdo printer garee print numbers marka index hadda wuxuu ku dhamaadaa 0 maadaama ka bilaabanayo waa 0 1 2. haddaan is dhaho markaa numbers 3 printer garee waxa soo baxay waxaa la dhaho index error. marka wuxuu leeyahay list index out of range. haddaan rabna kaa inaynu qabano waxaan odhanaynaa try codekii waan gelinaynaa markaa print kabacdi waan odhanaynaa accept index error isaan print garaynaynaa message. marka index errorkii ayaan hadda handle garaynaynaa. haddaan dhaho hadda run inoo soo baxay the provided index does not exist. matalan qofkii baad weydiinaysaa kale macluumaadka iminka anaa geliyey 3 laakiin macluumaadkii oo kale waxaad haystaa list of names ama list of numbers. nambaradii baad rabtaa inaad qofkii kolba aad weydiiso wuxuu rabo inuu birtigareeyo. marka waa inaad ku tala gashaa inuu qofkaasi gelin karo index aan jirin. sidaa awgeed waa inaad markaa isticmaashaa index errorka. qaybta ugu dambaysa ee muhiima inaynu fahno waxa weeyaan adigu inaad markaa error raise garayn karto. haddaynu hadda dhahno raise exception innaga hadda marka raise garaynay errorkan
sababaha muhiim u tahay inaad tan fahamtaanna hadhowta ayaan sharixi doonaa laakiin haddaan hadda ran dhaho error ayaa soo baxay message-kiina waa message-ka aan gudaha geliyey oops something went wrong marka hadda waxaynu arkaynaa tusaale practical ah oo ina fahamsiinaya marka aynu u baahnayn isticmaalno raise exceptionka tusaalaha ugu dambeeya aan arki doonno waxa weeyaan waxaan rabnaa inaynu age oo kale aan check garayno ama verification ku samayno marka waxaan oran karnaa qofkii baan age-ka weydiiyey kabacdi waxaan oran karaa markaa if age is less than 0 مثلا qofka wuxuu geliyey 0 buu geliyey waxaan oran karnaa print oo raise baan oran karnaa raise exception the age okay waxaan kaloo eegi karnaa markaa elif age haduu 17 ka yeer yahay waxaan oran karnaa sorry to state one ka yiri waxaan oran karnaa sorry you are minor under age baa tahay matalan else muhiimadda waxa weeyaan in anagu markaa waxa la dhaho custom exceptions aan raise garaynayno markaad u baahanta waxa weeyaan markii exceptionka la socda pythonka aanu satisfy garaynaynin exception handlingkaaga ayaad markaa u baahanaysa inaad fahanto sida loo raise gareeyo exceptionka haddadaan run dhahno minus 2 haddaan geliyo wuxuu yidhi the age can't be negative marka waa exceptionka anigu hadda aan raise gareeyo wax soo baxaya haddaan dhaho matalan 16 sorry you are minor hadaynu dhahno matalan 19 you are an adult okay marka waxay ku tusaysaa inaad adigu raise garayn karto inaad adigu markaa aad raise garayn karto exceptions halkaas ayaan ku gabagabeynayna casharka waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu